Cancelo! Ciao! Estel Markale! Jesus! Oh yes! City goal! Chelsea ever! Gabriel Jesus! Ayaan ugu dambeyntii goolku gaaray galabta. Ugu dambeyntii Championska! Wala yimaadeen goolka! Libax qoyay habboodin bisad! Championska is back! Championska England ayaa hogaanka dib u wareegsaday runtii oo maanta hogaanku qabtay ciyaarta. Thomas galabtii ma habuu isleeyahay waa yaabayahay. Halka Antonio dhidid weyn uu ka yimaaday. Chelsea waa lagu hogaaminayaa galabta. Waa inuu arki doonaa haddii ay comeback samayn karayaan ama ay qaadan doonaan guuldaradii ugu horeysay ee seasonka. Chelsea unbeatenkeedii galabta malaha waa loo yaabayaayo waan arki doonaa. Bernardo Silva caga dahab ah ayaa u dhiibay Kevin oo caga dahabkii weynaa ahaa kadib dhanka la dhigayo waa lagu tuuray Cancelo shootkiisii waxa cishtay oo qaabeeyay ku jeersaday u jeestay goolka u dhigay halka Gabriel Jesus ya Brazilianku alla sidoo u galay mujida laba saddex nin buu isla dul wareegtay kadibna uu macalmendi ku daray kow ninka la yiraahdo Giorgino Italiano, Antonio Rudiger, Christensen, Kovacic oo meelaha wada taagan, Silva fiirinaya iyo Mendy fiirinaya ayuu gool ku gaareen City. Kevin De Bruyne, Jesus iyo Bernardo waxay la dabaaldegayaan taageerayaasha galabta ee xorta Sheikh Mansour. City way caafimaad qabtaa marka Raheem Sterling ku soo bilowdo. Wala yaqaana ninka Guardiola saaswala mooyaane war cunugaas kufaya ayuu garoonka la soo ordaa mooyaane City haddaanu ninka u joogin way adkaatay scholarship ku xitaa ciyaartii waa gabagabo waa qalad baa la siiyay Bulisionkii ugu dambeeyay ciyaarta weeyaan runtii galabta Chelsea iyo Manchester ba hal maalin bay guuldaro wada qaadan karayaan walla Bruno waa kan arki doonaa runtii yaa waa la laaday runtii City xilli dambe gool